waxay igula taliyeen inaan ilmaha iska soo xaaqo. Ku tashteen inay iga xadaan dahabka iyo lacagta anoo jiran oo hurdaaya. Odaygii markaan taleefanka ku jiray aad ayuu u xanuunsaday, wuxuuna iskugu yeeray tolkiis intii ugu waxgaradsanayd wuxuuna yidhi: aniga gabadhaas ima rabto, waana ogahay inaysan i rabin. Markan guursanayay ayaan ogaa, balse aniga gabadhaas waan fasaxayaa waana u furayaa reerkooda, balse hal ayaa aniga igu taagan, waana inay gabadhaas uur ii leedahay iyo in kale inaan ogaado. Hadday ii leedahay iyo haddayn ii lahayn waa caadi, laba gooraba madaxeeda waan siinayaa. Oo mar aan wada hadlaynay waan weydiiyey uur inay ii leedahay, balse waa gabare, waa iga qarin kartaa, waayo hadday ii sheegto inay uur leedahay inaan furin ayay ka baqaysaa. Balse ilma adeerayalow, gabadhaas inay leedahay uurka reerkoodu ha soo xaqiijiyaan, waan u furayaa. Gabadha xataa hantiday wadatay kama doonayo, waana iga cafis dhammaanba, ayuu hadalka ku sokoobay. Waana qaateen taladii odaygii tolkiis waana u cuntantay hadalkaas, balse ubadkisii ayaysan u cuntamin oo ka biyadidsanaa, balse hadalka abahood ayaa ku noqday seeto aan la dhaafi karin. reerkii aan ka dhashay waxaa loo sheegay fariintii odayga, waxayna dhaheen hagaag, waa hadal nin weyn hadalkaas, waana soo ogaanaynaa inay gabadhannada uur leedahay iyo in kale. waxaan soo wacday aabe, waxaana u sheegay xaaladayda inay wanaagsan tahay, ahayna qof degan kuna faraxsan noloshay gashay. sidoo kale waxaan uga sheekeeyey reerka wanaagsan een la joogo, waxaana u sheegay inaanba helay ehel aad u fiican oo isoo dhoweeyey. aabe noloshan ka helay reerkan waa mid aad ii qancisay, iina cajabisay. gabadhooda kale ayay iga dhigteen ayaan ku idhi, balse wuxuu ii dhahay in lagu furo soo maadan rabin, madaxaagana lagu siiyo. aabe ninkii ku qabay wuxuu dhahay gabadhii waan furayaa, balse inay uur ii leedahay iyo in kale ayaan rabaa inaan caddeeyo. ii sheeg aabe, uur ma leedahay adoo ilaahay ka baqaayo? aabe waxna aan iga qarsanaynin, laba gooraba waa lagu furayaa. waan farxay markuu i dhahay waa lagu futayaa, iina sheegay inay i tageereen. odaygaygiina dhahay waan furayaa, balse waxaan ugu jawaabay aabahay sidaan: aabe aniga waxaan isticmaali jiray kiniini, waana u sheegay odaygayga inaan lahayn wax uur ah, mana lihi uur ee iga soo fura. aan idiin duceeye, odayga anugu madoonayo, waxaad iga reebteen kayrkay, anigoo wax baranaya ayaad afka iga geliseen odaygaas. aabe hanti wax ma sheegto, aniga waan ogahay inuu lacag badan idin siiyey, anna dahab iyo lacag aan kala soo tegay, balse aabe aniga noloshan doonayo, waxaan u haayana malahan madaxayga haysiiyo. waxaa hadalkii loo sheegay tolkii odayga in aanan uur lahayn oo caafimaad qabo, oon doonayo in la ifuro oo qur ah. haddaan uur leehay ismaan qariseen ee u sheega odayga ha isoo furee. balse odaygii markii loo sheegay inaan uur lahayn ayuu dhahay hadalkaas ma ahan mid runta ku qotomo, gabadhaas inay uur leedahay ayaan filayaa. aniga waxaan ka walwalayaa habeen iyo maalina hunqaaco joogta ah iyo uurka aan qarinayo een qaxootiga la joogo. waxaan qarinayaa uurka. gabadha aan la joogo ayaa i weydiisay sababta aan uurka u qarsanayo, oo intaan oo jeer oo la ila hadlayo ugu celinayo dadka inaan been u sheego. marka waxaan dhahay aniga ma dhacayso inaan ilmahan sheego, waxaan doonayaa inaan cidna u sheegin. gabadhii ayaa dhahday haddadan ruux u sheegaynin, walacna sidaan kuu hayo waa mid adiga ku dhibaysa. waxaan gabadhii u sheegay inaan doonayo inaan ilmahan korsado, oonan doonaynin inaan cid kaalmo weydiisto. ilmahana haddii uu weynaado aan u sheegayo reerka inaan ilmo u haayo. balse gabadhii ayaa i dhahday ilma maanta abbihii iyo reerkooda aad ka qarisay, waxaa hadhow lagu dhahayaa waa garac, ma ahan ilmo aan anaga dhalnay. marka maxaad dhibkaas iskugu soo jidaysaa? hadda maad runta sheegtid. waan diiday hadalka gabadha, waana ku gacan sayray. waxaana horay loo dhahay qof kasta qumanihiisa qoorta u suran. odaygii waxa uu iskugu yeeray dhammaan labadii tol ee kala ah tolkaygii iyo tolkiisii, wuxuuna halkii uga dhawaaqay furitaankaygii. halkaas waxaan ku noqday garoob uur leh oon uurkiina sheegin. labadii tol waa ismacsalameeyeen waana kala tageen. madashiina waxay noqotay madal gabadh lagu furoon ducaysnayn. waxaan aad ugu sakaraansanayay walacii, waxaana noqday qof aad u sii jilcayso, maalinba maalinta ka dambaysana sii galayso walac. waxaana lagu dhahay wax kasta oo ay ku walacdo inay ka hesho qaxootiga, balse waxaan go'aansaday wiilkii reerka lahaa iyo xaaskiisina waxaan u sheegay inay rabto inay aado Nairobi oo ay culayska ka qaado reerka. balse waa diideen oo waxay dhaheen waad xanuunsanaysa, Nairobina cid kama taqaanid ee maxa kaa jira. dhib managu haysid anaga ee iskala kaana joog oo halkan iskaga umul xataa. balse waa ka biyo diiday, waana arkeen reerkii inay rabto inay tagto, waana la qateen go'aankii. wuxuuna wiilkii usoo gooyey tigidhkii, waxayna subixii usoo baxday magaalada Nairobi oo aysan cid ka aqoon. wiilkii ayaana si wanaagsan ugala dardaarmay darawalka gaariga, una sheegay inaysan gabadha sharci dhammaystiran haysan oo aysana af aqoon lacagtan yar inuu ku jidmariyo. aad ayuuna dardaran adag u siiyey, wuxuuna dhahay soo wac inaan Nairobi imaado waa suuragal, waana ku soo raadinayaa, waa kana lambarkayga. aad ayayna ugu faraxday soo bixitankeeda Nairobi. baskiina waa soo dhaqaqay oo cagta soo saray waddadii caasimadda Kenya ee Nairobi.
waxay soo martay jid dheer iyo rafaad badan. kolba askar ayaa istaajisa gaariga, waxayna dadka weydiisa sharciyada dalku galka, waxayna iyadu tustaa warqad ku sug ah oo dalku galka lagu sii sugo. waxayna askartu kula hadlan afka dalka, balse waxba kama taqaano oo way ka aamustaa. taasna waxay u sahashay askarta inay lacag weydiistaan gabadha, balse wax kasta waxa fududaynayay wadaha baska. waxayna aamin maqrib ku dhow imaatay magaalada Nairobi ee caasimada Kenya, waxayna wiilkii ka codsatay inuu geeyo hotel ay seexato cawa keliya, waana geeyey hotelkii. waxay habeenkii saxatay halkii, waxay maalmo joogto halkaas walacna la dhibtooto. waxay isbarteen gabdho ku noolaa muddo dheer Nairobi, waxayna gabdhihii ka codsateen inay timaado gurigooda, waana ka soo guurtay guriga. waxayna imaaday gurigii gabdhaha lahayeen. waxaa dhacday inay gabdhihii kala tashato xaladeeda walaac ee sii xumanaysa, waxayna gabdhihii wada arkeen gabadhan dahabka iyo lacagta ay wadato iyo ayaga lacag la'aanta haysa. waxayna go'aansadeen inay lacagtan wax uun ka helaan, waxaana Xaawo Luul la kula talsheen inay ilmaha iska soo xaaqdo. waxay maalmo badan kula taliyaan inay iska soo xaaqdo ilmaha oo ay noqoto qof hantiday wadato ku shaqaysan karta. waxay markii dambe ay go'aansatay inay iska soo xaaqo, balse intaysan iska soo xaaqin inay u sharaxaan sida looga soo xaqayo iyo dhibka ay ka mari karto ama intay dhaawac noqon karto. waxayna u sheegeen inay maalmo yar noqonayso dhaawac oo keliya, sida looga soo xaaqana tahay si wanaagsan oon ayada dhib ku dhacaynin. Xaawo Luul fikir iyo isla hadal badan kadib waxay go'aansatay inay ilmaha soo xaaqdo oo ay taasi tahay wax ayada u wanaagsan. hadalka gabdhahana yahay wax aad ugu ifiyey mowqifkeedii ahaa inay horumar gaarto. Xaawo Luul waxaa sii qaaday gabar ka mid ah gabdhihii, waxayna u sii qaadeen hosbitaalkii, waxayna geeyeen goobtii ilmaha lagu soo xaaqi lahaa. waxay in badan ka sii fikiraysay Xaawo Luul waxa caafimaadkeeda ku imaan kara, waxa ka dhalan kara ilmaha ay xaaqayso ninkii iyo reerkii ilmahan caloosha ku wado lahaa hadday ogadaan sheekadan waxa ka dhalan kara. waxay isweydiinaysay su'aalo badan oo ka tan badinayay nafteeda, waxayna gabadha wadda markasta ku dhahdaa cabsida iskadaa is adkee, anigaba dhowr jeer ayaan halkan iskaga soo xaaqay ee isdeji, cabsi ma lahan, xanuun badana ma lahan. daktarkii ayaa u yeeray Xaawo Luul, waxayna gashay goobtii ilmaha lagaga xaaqayay. inta uusan goobta gelinin ayuu la taliyey inay iskadayso ilmaheeda ay dilayso oo ay korsato duruufta ay u soo ridayso haddaysan ahayn mid daruuri ah. hadal badan kadib waa diiday inay ilmaha daysato, wuxuuna arkay inay gabadhan rabto inay xaadho ilmaha, waana ka soo xaaqay ilmihii xalasha ahaa ee dhigeeda ahaa. waxay soo xaaqay ilmaheedii ahaa dheecaankeeda. waxay soo baxday ayadoo aad u xanuunsanayso oo dareemayso xanuun badan. waxaa lagu soo qaaday gaari, waxayna soo aadeen ayada iyo gabadhii waday gurigay deganayeen. waxaa loo goglay meel ay seexato. aad ayay u dareemaysaa xanuun, waxay ku jirtaa xanuunkii walaca mid ka daran. waxay kolba qabsataa meel, way ooysaa. waxayna bilowday shalayto iyo inay nafteeda canaanato oo isweydiiso maxaad ilmaha u soo xaadhay. gabdhihii kale ee ag joogtay ayaa waxayna ku jirtaa nolol xanuun badan, dhiig badana waa ka socdaa oo waa dareemaysa. waxay maciin biday oohin, balse gabdhaha ay la joogto oo ahaa kuwii ay qaadatay fikirkooda ayaa dhiiri galsha oo dhaha iskadaa oohinta, waa maalmo, xanuunkan ma badnee hawalwelin. waxaa ku dhacay xanuun aad u badan. waxay gashay nolol aysan marnaba ku fikirin. waxayna gabdhihii ugu tashteen inay ka xadaan lacagta iyo dahabka. waxayna taladii gabdhaha ku sogoosteen inay hadday sidaas sameeyaan ay tahay inay uga guran boqolka ay degan yihiin si aysanba isku arkin mar dambe. waana sameeyeen, waxayna furteen boorsadii Xaawo Luul, waxayna kala baxeen lacagtii oo dhan iyo dahabkii, waxaana ka ahayn hal sad oo markaa Xaawo Luul ay qabtay. markaas waxayna markiiba u faarujiyeen gurigii ayagoo u ambabaxay xafadda Islii qayb ka mid ah, kana kiraystay qol kale. Xaawana weli waa ay jiftaa oo ma soo kicin. Xaawo Luul waxay soo kacday dhammaan gurigoo waxyaalo aanay jirin, waxaan ka ahayn boorsadeeda, sariirta, dahyo markas ku xirna guriga oo awalba maysan gabdhuhu ahayn kuwa sidaas wax u karsado. waxay ahaayeen gabdho iskaabulo ah oo hoteelada xafadda Islii wax ka cuno. waxay garan weysay intay jiftay waxaa reerka sidan u gurtay. way fikirtay, oo maxaa dhacay, maysan joogin miyaa tuuga reerkan sidan u dhammaystay, may qabtaan oo xiraan, mise aniga maxaa igu dhacay, waxaan oo hurdo weynaan ah maxay ahayd, maxaan shanqarta ugu kici weyey. waxay nafteeda canaanatoba waxay damacday inay wacdo gabdhaha mid ka mid ah, balse lambarkiiba waa dansan yahay. waxay iska joogto cabaarba, waxaa la garay casarkii. wax ilaa hadda u soo socdo malahan, wax ay cunto ma haysato, waa gajoonaysaa. waxay weli tahay dhaawac oo xanuunkii kama bogsan. waxay samayso ayay garan weyday. alla maxaan sameeyaa, mana aqaan magaalada, waana gaajaysanahay, xageen wax ka bilabaa. ayadoon wax cunin ayay habeenkii seexatay, balse ilaa iyo hadda waxay tabtay aysan jirin. waxay u naxsan tahay gabdhihii oo ay tabaysa waxa awa u soo dheelmanayaan. waagu markuu baryey ayay qabaysatay oo istaahirisay. waxayna damacday inay dharkeedii xirato, balse markii dharkeedii xiranaysay ayay waxay weysay dahabkeedii iyo lacagtii oo dharka ugu dhex jiray.
waxayna xilligii bilowday baroor iyo oohin. alla tol ma haystoy xagay adeen naagihii way idhaceen intaan xanuunsanaa ayay iga faa'iidaysteen. alla waxaan soo cararaba ma sidaan baa ii dambaysay xageen hadda wax ka bilaabaa magaalada xataa ma aqaan maxaan sameeyaa. alla hooyo macanayaa ii kiinkeena noloshan bilowgeedaba wada murugta iyo dhibka ah een dhex galay maxay ahayd. waxay isku dayday inay waxay cunto raadsato balse nafteeda haddana u jawaabtoo dhahday oo seed ku helaysaa waxaad cunto lacagba ma haysatidee. waxaan u soo degay hoos oo waxaan ka soo degay dabaqa. intaan soo degayay jaranjarada way idhibaysay oo waan wareerayay. markay soo baxday gabadh adeeg wadata ayaa igu soo leexatay oo isalaantay. waan ka qaaday kadibna waxaan uga sheekeeyey waxa igu dhacay inkastoo ana uga shekaynin ilmahan xaaqay ninkan ka soo cararay. balse waxaan u sheegay inay gabdhahan qolka isla deganay iga dhaceen dahab iyo lacag xataa lacag aan wax ku cuno ma haysan. balse gabadhii ayaa ii naxday oo i keentay gurigeeda oo ahaa dabaqan deganahay guri ka mid ah. waxay ii siisay cuno fudud waxayna ii soo dhowaysay si naxariis kula dhan tahay. waxay ii sheegtay inay ayada iyo 2 ciyaal ah ku nool yihiin guriga oo aan iskala joogi karo haddan cid ka aqoon magaalada. waxay kaloo ii sheegtay in ninkeedu ku maqan yahay Maraykan ninkana yahay mid la siiyey oo waalidkeed u garteen balse maanta ay ka mahad sheeganayso sida uu u dhaqanayo. markaas ayaan ilmeeyey oo soo xasuustay waxaan aniga ka soo dhexbaxay iyo halkan taaganahay saaka. inaan gabar qayrkay ah wax la cunayo oo gurigeeda igu soo dhowaysay. nin adduunka joogow maxaa aragti ku laaban. waan dhargay waxayna i seexisay qol ay ii gogshay. intanan seexan ayaan u sheegay inaan dharkayga ka soo qadanayo gurigan xalay baryay ee laygu dhacay. waan soo baxay markaan qolka imid ayaan meel kasta wax ka fiirshay wax caddayn ah oon gabdhaha ku raadin karo balse waan waayey. gabadha mar aan weydiiyey waxay ii sheegtay inaysan gabdhaha garanaynin oo dad badan degan yihiin guriga. laysmana garan karo dadka badankiina iskumaba wareego. anigoo guriga ka soo baxay ayaa waxaa soo dhacay telefoonkayga. waan qabtay mise codka ila hadlayo waa hooyaday. alla hooyo wanaagsanaa markaad murugsan tahay waa wehelkaaga koowaad ee kula wadaagayo murugta. waxay i dhahday sidaan hooyo gabadhaydiyey ii waran xaaladahaga waa sideena maxaa kugu dhacay telefoonkaga waan soo wacay mana daarnayn maad xanuunsatay. markaas waxaan u sheegaan garan waayey aniga dhan ayaa ilmo isku celin waayey. hooyadayna uma sheegi kari inaan ilmihii xalaasha ahaa xaaqay balse waxaan u sheegay inaan yara xanuunsaday haddana wanaagsanahay. waxaan kaloo weydiiyey xaaladda reer iyo dhammaan qaraabada balse intaysan iiga sheekaynin xaaladaha reerka ayay halmar i dhahday hooyo alleha u naxariisto odaygii ku guursaday ee lagaa furay hooyo shalay galab ayuu dhintay. allaha u naxariisto sidaad uga tagtayba wuxuu ahaa bukaan socod dhakhtar kastana waa la geeyey balse ma bogsoon oo tiisi ayuu ku dhintay. marka hooyo iska cafi haddii aad wax ka tabanayso. aad ayaan u naxay geerida ku timaaday odaygaygii hore waxaana dareemay cabsi aad u weyn. waxaan xasuustay wanaaguu ii galay iyo noloshaan ku jiro maanta. waxaan sameeyo ma aqaan. waxaan markasta soo xasuustaa wanaagii iyo kalsoonidii uu i siiyey odaygayga. waxaan maalmo badan iska joogay gurigii gabadha waxaana noqday qof aamusan oo sii murgayo. waxaan wax ku gato ma haysto xataa lacag aan hal xaboo xanuun baabi'iye ku iibsado ma haysto. waan fikiray waxaan sameeyo ma aqaan. waxaan ka codsaday gabadhii inay shaqo ii soo raadiso oo aan ka shaqeeyo. waxayna gabdhihii markii dambe ii soo heshay shaqo jaariyadnimo ah. waxay i dhahday dabaqan ayaan kaga soo helay inaad guriga ka shaqayso ood cunada u kariso ee ma tahay diyaar. waayahay ayaan dhahay. waxaan bilaabay shaqadii. waxaan habeenkii seexdaa qolka ciyaalka. waxaa guriga aan ka shaqaynayo degan 9 ciyaal ah hooyadood abahood iyo 5 wiil oo qarabada labada isqabta ah. halkii ayaana iska joogay oo shaqaynayay. waxaa habeenada qaar dhacda inaan daal la seexan waayo. run ahaantii waxaan noqday qof iska socda oon awood weyn lahayn. maalin maalmaha ka mid anigoo shaqadayda iska haysta oon cid wax ku darsan ayaa waxaa isoo galay wiil ka mid ah wiilasha reerka. aadna iskuma naqaano balse wuxuu in badan ii shekeeyaba. markii dambe wuxuu isku dayey inuu naftayda wax ka soo raadsado oo wuxuu isku dayey inuu xoog wax iga qaato. aniga waan ogahay tabartayda waan iska celiyey xoogaa. markii dambe maciin biday dhawaaq waxaana soo baxay naagtii adoonta ahayd iyo ciyaalkii yaryaraa waana iga fuqay. balse aniga waxaan go'aansaday inaan u sheego gabadha iska leh guriga. waana u sheegay balse waxay iigu jawaabtay hadal aanan ka filanaynin oo waxay i dhahday naaya waxaad tahay adeegtada guriga wiilka aad ka dacwoonee waa walaalkay ee dhagahaga fur. markuu adiga nafkaa dayaayo manaag ayuu waayey. xumaantaad wadato hanala soo gelin wiilkeena hanaga eebaysan ee waxaad tahay jaariyad ku ekow shaqadaada haddii kale orad oo naga tag fataalad yahay. waana iskaga soo tegay. waxaana aaday gurigii gabadhii isoo keentay shaqadan. waxaana uga sheekeeyey dhibkii i haystay muddadii bilaha ahayd een ka shaqaynayay guriga.
wayska oysay maxad igu sheegi weysay wanka soo kaxayn lahaaye balse waxaan u sheegay inaan jeclayn inaan ayada dhibo markii aan sidaas ku dhahay ayayba sii oyday oo i dhahday aniga ima dhibaysid walashay ayaad tahay guriga ku nolow sidaad rabto u maamul qolkagana aniga ku hagaajin xataa ee walashay ayaad tahay xumaan cid kugu samaynaysa ha u shaqayn ee gurgigaga ku naso waxaan gabadhii la qaatay wakhti badan waxaan xaafadda ka mid noqday dadka xaafadda markii dambe waxaan shaqo ka helay meel aan iga fogayn shaqadaas ahayd mid cunto karina waxaan halkii muddo joogaba waxaan isbaranay wiil ka mid ah macaamiisha meherada cunada waxaan wiilka isku fahanay inaan nolol wadaagno wuxuu noqday wiilkii qalbihayga dega wuu i dhexgalay si wanaagsan ayaan jacayl ugu qaaday asagana sidoo kale waa ii siiyey dareen iyo wehel jacayl waxaan sheekaysano muddo dheerba wuxuu ii soo bandhigtay guur waana ka aqbalay guurkii waayo waxaan aad u doonayay inaan ka baxo noloshan kelinimada ah iyo inaan ka kabto noloshii isoo martay ee xasuusteedu baaqiga igu sii ahayd waan isguursanay waxaan wada degnay hal qol oo ka mid ah gudaha islii sariir iyo alaabo yar ma aanan dhigan aroos weyn oo la sheego balse aniga noloshiisa waan ku faraxsanahay waana ku jeclahay inaan kula noolaado sidaan uu asagu rabo ana aan la rabo waxaan asaga markasta siiya nolol farxadeed oo uu ku qanco kuna farxo balse markaan muddo ahayn reer dhisan ayuu wuxuu bilaabay nolol ka kadisan noloshaan isku baranay een ku wada joognay wuxuu sameeyey habeen dhex iyo in uusan ila hadlin oo xataa i oransee tahay waxaan u kariyo ma cunayo waxaan isku dayey inaan wuxuu qarsanayo la wadaago oon ogaado markaan hadalka ku badiyo wuxuu igu hanjabayaa inaan kadayo hadalka badan haddii kale uu ii qaadayo gacan waxaan sidii kula joogo muddo bilo ah ayaan u adkaysan weyey waxaa sii batay habeen dhixiisa 7 bari ayuu iga maqnanayaa uuna isiin biil uusan isoo wicin haddaan wacana uusan iga qaban haddaan shaqaysan lahaa waxaan ka baqayaa in lay weydiiyo dhibka i hayo ninkaygoo nool waxaan u shaqaynayo waxaan sidaas ahaadaba waxaan maalin go'aansaday inuu ii sheego sababta uu isku beddelay markaan su'aalo badan weydiiyey ayaa asagoon ii jawaabin wuxuu igu bilaabay feer aniga waxaan garan weyey meel layga yimid waxaan noqday qof miyir beelay waxaan soo nafisay anigoo wada dhiig ah oo meel kale ah la ilkuhu way iligliganayan anigii oo dhan meeshaan taabtaba waa i danqanaysaa waxaan aad uga sii naxay oo dilka iga darnaa waxaan arkay miiska waraaqtaala waan eegay mise waa furitaankaygii anigii xanuunkii i hayay mid ka sii weyn ayaa igu sii dhacay waxaan iska dhaqay dhigii anigoo aad u danqanayo waxaan iska urursaday dharkaygii waxaana kaalmo ka soo doontay gurigii gabadha ee layga guursaday sannad iyo bilooyin ka hor waxaana soo garaacay gurigii waxaana iga furtay gabadhii oo aad uga naxday markii ay aragtay dilkayga hore loo dhahay naag la furay fadhi uma yaalo waxaan soo galay guriga waxay ooyso oo baroorato anigii igu dul ooysaba waxay i geysay dhakhtar waxayna iga soo dawaysay dhammaan nabaradii waxay igula talisay inaan dacweeyo oon xiro balse waan iska daayey oo waan cafiyey hadduuba i furay uu i siiyey waraaqdaydii xataa meherkii dar ilahay ayaan iskaga cafiyey waxaan iska bilaabay inaan meel yar oo suuqa ah aan ku karsado shaah oon shaaha maalintaas oo dhan suuqa wada geeyo oo dadka iga iibsadan run ahaantii dadku waxay u arkaan markaad sidan oo kale dantu kuu fadhiisiso meel sidan oo kale ah inaad tahay qof xun oo layska isticmaali karo anoo weli gabadhii la jooga ayaa waxaa imaaday ninkeedii wuxuuna ii keenay hadiyado fara badan sida telefoon shoobin iyo dhar wuxuuna asagana iga dhigtay walashiis oo kale waxaan damcay mar hadduu imaday inaan guri kiraysto balse waa iga diiday markuu muddo bil ah joogay ayaa wuxuu maalin uu nooshay aniga iyo xaaskiisa inuu martiqaadayo nin ganacsade ah oo ay ilaa yarantoodii ahayeen saxiib maantana uu rabo inuu martiqaado loona baahan yahay inaan martiqaad heer sare ah samayno aniga iyo xaaskiisa waana ku dhaqaaqnay subaxiiba inaan samayno martiqaad heer sare ah waxaa imaaday xaajigii xafada iyo ganacsadihii saxiibkii ahaa waxayna galeen fadhiga oo aan ku diyaarinay qado waxay arkay ganacsadihii wuxuuna saaxiibkiis ku dhahay waan ka helay gabadhaan adduunka meeshay rabto waan ka dejin waxaana u dhigayaa aroos weyn oo ay ku faraxdo garoob iska daaye aysan gabadhi ku fikirin in loo dhigo marka gabadhan ii soo ogow xaaladaheeda inaan la kulmana waa daruuri waxaa ii yeeray habeenkii xaajigii xafadda iyo gabadhii sida wanaagsan ii soo dawaysay een ka helay garabka wuxuu dhahay walaashay xaawoluul waxaad tahay qof wanaagsan wax kastood soo martayna waxay kuu noqdeen cashir iyo waayo aragnimo waxaan doonayo inaan ku weydiiyo xaaladaha gagaarka kuu ah ee ah inaad qof la socoto iyo inaad damacsan tahay waayadan inaad reer noqoto inkastoo gabadh kastaba ay ku hamido mustaqbalkeeda inay gasho meel wanaagsan balse maanta aniga qof wanaagsan ayaan kula rabaa asaguna ku gaclooday ee bal afkaaga wax iiga sheeg siday xaaladahagu yihiin waxaan dhahay waxaan maanta jeclahay oon doonayo inaan isguursano malahan ninkaas intaan ka aqaano ma ahan nin xun waa nin aad u wanaagsan oo aqli badan hantii alle waa siiyey wuxuusan haysan waa xaas uun wuxuuna doonayaa inuu adiga ku guursado ood xaaskiisa noqoto wuxuu igu qanciyey anna waan ka yeelay
ugu dambayntii ninkii waa isguursanay wuxuuna ii dhigay aroos weyn oo aad u qurux badan. Waxaan isqabnaa muddo 7 sano ah. balse waxaa aad uga xumahay inaan ninkan sidaas ii wanaajiyey nolosha intaas leegna i siiyey inaan ilaa hadda u yeelan wax ubad ah. waxaan wada noolnahay 7 sano. waxaan aad uga murgaa noloshaydana isoo xasuusiya nolosha aan ku jiro ee ilmo la'aanta ah. meel uusan dhakhtar iigaynin malahan, balse dhakhtar kasta wuxuu i dhahaa wax ma qabtid. waxaan aad uga murgaa ilmahan iska soo xaaqay. waxaan u arkaa nolosha ilmo la'aanta ah een ku jiro inay iigu wacan tahay ilmahan soo xaaqay. waxaan yaa markastuu iga maqan yahay ninkayga umana sheegin inaan hadda ka hor ilma iska soo xaaqay. waan ka qariyey taas inkastoysan ahayn inaan ka qariyo, haddana waxaan ka baqayay inuu iga xanaaqo ama iga aamin baxo. waxaan ku jiraa nolol wada hanti ah, balse ma haysto wax ubad ah. noloshayda hantida aan haysto waxaan ku beddelan lahaa hal ilmo ah oon u dhalo ninkayga, balse markasta waxa uu i dhahaa walashay xawaluul wax kasta waan helaynaa hadduu alle inoo qoro ilmana waan helaynaa ee aan samirka badino. dhammaad qisada. haddaba adigu sidee u aragtaa qisadan? fadlan leeg saar muuqaalka. mahadsanid.